waa marwada ugu taxadarka badan uguna dhowrsoon dunida kubadda cagta ilaa iyo hadda iyada la'aanteed farxad ma dareemo Maxamed Saalax sidee bay Maagi Saalax u kasbatay qalbiga mid ka mid ah ciyaaryahanada dunida ugu fiican maxay xaaska Maxamed Saalax u tahay sirta ka dambaysa guushiisa waad ogtahay xigmadda oranaysa nin kasta oo guulaysta ama heer gaara inay ka dambayso ay garab taagan tahay haweeney Cristiano Ronaldo waxa garab taagan Georgina Lionel Messi waxa garab taagan Antonella Gerard Piqué waxa garab taagan Shakira badana waxa jira haween cajiib ah kuwaas oo garab siiyay ciyaaryahanada guulaystay dunida maanta balse marwada la yiraahdo Maagi Saalax oo ah xaaska Maxamed Saalax ma aha xaasaska nooca ciyaaryahanada aad horay u taqaanay kuwaas oo jecel inay baraha bulshada oo dhan soo dhigaan muuqaaladooda oo ay ka soo muuqdaan haddana bixiya waraysiyo tiro badan kuwaas oo siiya warbaahinta caalamka laakiinse Maagi waa mid la yaab leh waayo way qarsoon tahay way dahsoon tahay kama soo muuqato fagaarayaasha inta badan 4 jeer oo kaliya ay ka soo muuqatay fagaarayaasha 2 jeer waxay ahayd xafladii dhamaadka xilli ciyaareedka England gaar ahaan tii Maxamed Saalax uu ku guuleystay Golden Boot goolaynta Premier League Ingiriiska 2 jeer kale ee goob fagaara ka soo muuqatay ama lagu arko waxay ahayd garoonka Liverpool ee Anfield ciyaartii finalka Champions League ay ugu gudubtay Liverpool oo ay Barcelona uga adkaatay 4-0 ciyaartaas oo ahayd mid taariikhi ah markii Maxamed Saalax uu ciyaariyay kooxda Basel ee dalka Switzerland waxay ku kulmeen goob iskoola horeyna markii ay aad u yaraayeen waxa ay wada deganaayeen isku xaafad wadanka Masar waa Maagi iyo Maxamed Saalax ilaa waqtiga jacaylkooda ayay sii wateen imtixaanka waqtiguna wax saameeyna kuma yeelan jacaylkooda oo way dhabar adeegeen Maxamed Saalax iyo Maagi waxay isguursadeen sanadii 2013 Maxamed Saalax wuxuu noqday ciyaaryahan caan ah balse caannimadiisu waxba kama bedelin isaga ilaa iyo hadda Maagi waxay ka howlgashaa shirkad ka shaqeysa arrimaha biotechnology-ga waa arrin cajiib oo ay kaga duwan tahay dhigeeda waxay u dhaqantaa si caadi ah oo aan lahayn isqaadqaad lehna qalbi wanaagsan naxariis badan waxay waqtigeeda ugu badan ku bixisaa howlaha qoyskeeda waana sababta ugu weyn ee Maxamed Saalax uu aad ugu jeclaaday Maxamed Saalax qoyskiisa si xad dhaaf ah ayuu muhiimadu siiyaa laakiinse waxa ka go'an siduu sheegay isagu inuu jacaylkiisa iyo qoyskiisaba ka ilaaliyo kaamiradaha shaashadaha TV-yada wuxuu yiri waa dheeman ii gaar ah lamaanahan xiriirkooda ayaa ku dhisan daacadnimo waxa kaloo xiriirisa cibaadada Ilaahay waxay leeyihiin iimaan xooggan waa sababta ay gabadhooda ugu bixiyeen magaca Makka iyagoo ku xurmeynaya xaramka iyo magaalada barakeysan ee Makkatul Mukarrama gabadha yar ee uu dhalay Maxamed Saalax ee Makka la yiraahdo waxay soo jiidatay qulubta taageerayaasha kubadda cagta maray garoonka soo gashay oo ay u timid aabaheed dhamaadkii xilli ciyaareedkan Maagi iyo Makka waxay dhulka waqtigan la fadhiyaan Maxamed Saalax iyagoo farxadda la qaybsanaya Maagi waxay saygeeda garab taagnayd waligeed siiba xilliyadii adkaa waxay rabbigeed uga baryeysay inuu soo kabto oo xaalkiisu fiicnaado taasi waxay caddayn u tahay jacaylka dhabta ah ee lamaanahan dhex yaal sidoo kale waxay ku taageertay saygeeda mashruuciisa samafalka ma aha arrin la yaab leh sida lamaanahani u yihiin dad naxariis badan oo samafalka ku wanaagsan Maxamed Saalax waligiisu ku fiicnaa arrimaha bini'aadanimada ilaa iyo yaraantiisii markuu 10 sano jirka ahaa waxa uu la tababaranayay naadi xaafadiisa ku yaalay halkaas waxa ka dhawaa ay wata dhal yar maalin kasta cunno ayuu u soo iibin jiray aydaasi uu ugu quudiyo sida laga soo wariyo waxa lagu tilmaamaa shakhsi nadiif ah bini'aadanimo u saaxiibo oo naxariis badan dhinaca dabeecadana waxa lagu tilmaamaa shakhsi mutawaadic sidoo kale xaaskiisa ayaa kala mid ah sifooyinkan aan soo xusnay Maxamed Saalax wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada dunida maanta ugu fiican guushiisana waxa la xiriiriyay xaaskiisa Maagi waxa jira ciyaaryahano badan oo muslim ah oo dunida caanka ah muxuu kaga duwan yahay Maxamed Saalax ciyaaryahanadaas
waa hal arrin oo uu sharaf ku mutaystay isagu ma noqon hiyiraac oo kuma dayan dhaqannada dadyow kale wuxuu dhaqan geliyey diintiisa wuxuu ilaashaday qoyskiisa sida diintiisu farayso malaayiin dad ah oo aan la diin ahayn ayaa dhaqankiisu soo jiitay dad badan ayaa ku tilmaamay safiirkii islaamka taasoo loola jeedo inuu tilmaam fiican ka bixiyey dhaqanka wanaagsan ee islaamka waa cabdirasaaq jubba oo idinla intaan dib u kulmayno nabadgelyo